hadday tahay markii kugu horeysay muuqaalka aad daawato like noo saar channelkan haddaa ku cusub tahay subscribe noo saar asxaabta maadaama in ka maqnaa maalimahan xoogaha waxyaalo la jiray kusoo dhawaada sheekadeeni aniga waxaan ka shaqaynayay gaarigaasna waxaan ka ahaa darawal markaasi kadib alaab ayaan soo qaaday waxaana keenay xaafad aan u waday kadibna dadkii ayaa markaasi alaabta igala wareegay balse markaasi kadib codda ayaan waxaan ku arkay gabar albaabka ii taagan markaasi ayay ii soo ag istaagtay waxayna ii tiri caawa ma sheekaysan karnaa saaxiib kadibna waxaan dhahay aqoonba iskuma lihin see u sheekaysanaa balse markaasi ayada aayar markaasi way aamustay si u joogta ayaa markaasi qayla ayaa markaasi afka ka qabsatay aniga markaasi waa yaabay daqiiqada markaa joognay waa igu xanaaqday balse waxay damacday inay disho oo i kala tuurto kadibna aniga markaasi waa naxay inaan dharbaaxo ayaa damcay ayada markaasi way ii xanaaqday iyadoo markaasi yaaban runtii aad ayaa markaasi aniga u xanaaqay zaad ayaa markaasi u xanaaqay kadibna waa fikray waxaan dhahay maxay sababtay kugu xanaaqday maxay tahay kadibna cideeda ayaa imaaday daaqada ayaa waxaan ka arkay iyadoo meesha taagan balse darawalka gaariga ayaa waxaan dhahay shaqada ayaan soo galayaa kadibna shaqadayda ayaa rabay inaan ku laabto balse waxaan arkay gabadhii oo taagan albaabka kadib albaabka ayaa wax ku qorqortay runtii aniga markaasi waa yaabanaa dhar madowna way qabtay furihii gaarigayga qaadan lahaana ayada ayaa markaasi gacanta ku waday anigana markaasi waa naxay oo waa yaabay kadibna waxaa tiri gaariga ayaa igu qaadaysa ee soo dhaqso iyadoo markaasi habeen ay isku bedeshay balse markaasi kadib albaabka daaqada ayay soo istaagtay zaa'idna markaasi waa uga baqay runtii markaasi gabadha waxaan isdhahay maxay saan ugu ekaatay kadibna mobilkeyga ayaa markaasi qofkan wacay xoogaha markaa joogana mobilka waan damiyay oo waxaan jeclaystay inaan seexdo balse markaasi kadib shanqar ayaan maqlay waan soo kacay waxaan maqlay qaylo yeerayso iyo qosol balse markaasi ayaan waxaan arkay qof markaasi albaabka ka soo galay midi ayay wadatay wayna igu soo tuurtay inay disho ayaa markaasi rabtay aniga markaasi waa iska difaacay oo ayada ayaa markaasi feer ooga dhuftay afka way suuxday mididina agteeda ayay ku dhacday balse aniga markaasi booliska ayaa wacay booliska ayaa markaasi goobta imaaday kadibna furaheygii ayaa markaasi la siiyay ayadana waxaa la sheegay inay ahayd naag dilaa oo dadcun ah halkaas ayaa lagu xiray anigana darawalnimadeeda ayaa ku soo laabtay anigoo markaasi caafimaad qabo markaasi kadibna waxaan jeclaystay qofka alaabta u geenayo inuu iga soo doonto ayadana halkaas ayaa markaasi ku jirtay muddada sanado sheekadeedina halkaas ayay ku dhamaatay asxaabta